waxayna la fadhiya hablo dhagala oo maqalka naafaka halka waran ilaahay markay hor tagaan waxay haystaan fursad iyagu fursad bay la keenay dheerihiin waxayna la fadhiya hablo dhagala oo maqalka naafaka halka waran ilaahay markay hor tagaan waxay haystaan fursad iyagu fursad bay la keenay dheerihiin oo inan oo timid kowdii duhurnimo ee halkaa ka noqotay aniga kharashkii haysto dhisanaya dul haysiisa dawladdu inaan ku dhamayno ama stadiumka u qaban doono hablaha Hargeysa ama hotelka Mansour insha Allah ta'ala illa shantii maanta waxaan taagnaa dibadda inta halkan fadhida shan jeer libilaabkeed baa dibadda taagan suuqiyo dhan hablo buuxsamay shug badanna maanta way soo gaadhay intaas laha soo gal meesha aad baan uga xumahay hablaha ay u suurtageli weydeen inay soo galaan muxaadarada aad iyo aad baan uga ictidaarna waxaan ballan qaadayaa Ramadaanta dhexdeeda inaan kulan weyn ama stadiumka u qaban doono hablaha Hargeysa ama hotelka Mansour insha Allah ta'ala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa maadaama aniga hablihii ay dhageysanayaan intaasoo inan oo timid kowdii duhurnimo ee halkaa ka noqotay aniga kharashkii haysto dhisanaya dul haysiisa dawladdu aad u weyn oo ku samaysto howlal aan muxaadarooyinka ku qabsaday insha Allah ta'ala xabiibaati waxaynu ka hadlaynaa sidee baynu ramadaanka uga faa'iideysanaa barakallahu fiikum ramadaanku xabiibaati waxa weeyaan dayf marti culus oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala inooga timid ilaahay baa hadiyad inoo soo diray subxaanahu wa ta'ala waxaynu ka hadlaynaa ramadaanka sidaynu ramadaan ka duwan tii hore ka duwan sidaynu u soomay ma ogsoontahay nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam shahru rajab wa shahru allah subxaanahu wa ta'ala ilaahay baa iska leh shahru rajab shahru shabcaanna aniga iska leh xabiibaati nabigu wuxuu ina leeyahay sallallahu alayhi wasallam ramadaanku waa shahru ummati ummadayda ayuu ilaahay uga dhigay hadiyad ramadaanta marka maxaynu doonaynaa hadiyada ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kuu soo diray adiga uu u soo diray aniga inaynu si fiican uga faa'iideysano sidee baynu haddaba ramadaan uga faa'iideysanay waa inaynu xoojino xiriirka ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu la leenahay kow waa inaynu salaadaheena hagaajino ma ogsoon tahay xabiibata qalbi ya ruuxi salaadu inay tahay albaabka koowaad ee ilaahay kala hadlayso hadday salaadu kaa xumaato wax kalena kuma hagaagayaan marka ramadaanku acmaashu intii hore way ka wada weyntahay salaadii way ka weyn yihiin ilaahay agtiisa way kaga weyn yihiin marka maxaynu doonaynaa inaynu salaadaheena hagaajino fahamtid salaadu inay tahay albaabka ilaahay kula hadlaysid subxaanahu wa ta'ala salaadahaaga ku xasil rukuucdaada ku xasil sujuudaada ku xasil ilaahay kula hadal subxaanahu wa ta'ala ogsoonow markaad rukuucsan tahay dunuubtii oo dhan baa lagu duldhigaya haddaad ku raagto waa lagaa daadinaya miyaanaynu doonaynin inaynu dunuubta iska daadino waa inaynu dunuubta iska daadino ku xasil salaadaada macaanso dandhami salaadaada xabiibata qalbi ya ruuxi dandhami salaadaada dandhami qalbiga ka tuko qalbun khaashic soo jeeda ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku bari ku tuko ma ogsoon tahay intaad salaada ku jirto ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaad la hadlaysaa markaad faatixada akhriyayso ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala ayaa kuu jawaabay diyaar ma u tahay jawaabaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaad dhegaysatid waxayna la fadhiya hablo dhagala oo maqalka naafaka halka waran ilaahay markay hor tagaan waxay haystaan fursad iyagu fursad bay la keenay dheerihiin hablahaas ilaahay waxay koona ilaaha anigu waan dhagalaa iigu naxariiso dhagalaantii aad igu keentay innakumaynu haysanaa
subxaan allah. ilaahay iyagana maqalkooga u furo. hablaha waxaan leeyahay ha isdhiibina. ilaahay subxaanahu watacaala hadduu wax kaa qadiyo khayr kalu kuu furo, haddii kalena la kal jannaad leedahay. haddii ilaahay wax kaa reebay nicamkuu bani aadamka kala siiyey, jannaad leedahay insha allahu tacaala. laakiin nolosha ka qayb gal, waxbaro, shaqayso, ha isdhiibin nolosha sidaa ilaahay kuugu talagalay, weliba adigoo ku qanacsan. alxamdu lilah insha allahu tacaala.